marka khitaanku dee ragga waa la isku waafaqsan yahay xadiidkii bukhaarina wuu tilmaamaya ee xusayay nabi ibraahim isagoo 80 jir buu isguday qaduum buu isku guday qaduumka gudinna waa lagu sheegay inuu qaato isticmaalay meel uu markaa joogayna waa lagu fasiray marka isagoo amarka ilaahay u degdegaya markii gudniinka ilaahay waajibiyay ayuu horay ka qaato hawsha dhaxsa u fuliyay dirqaanu ku baxsaday oo uu isdaawici gaaray وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وحيابا أوامر أبو إلهي كو امتحانه وكصبح دمركا ويسكو خلافا علماء كان فرعون قاوة اللوغيا وحاران يساقوا يدوا الدنب اللي قال يوم هبلها يرير وهو يدي يدتي وحن سميني سنبا شريمة دا قال حكم كيس كاسوني قال الله هذا حكم كيس ما صنع مسوى واجب مذاهبتا intooda badan waxay leeyihiin inuu tuu jiraa laakiin qaarkood waxa ay leeyihiin waa waajib laba madhabna waxay leeyihiin waa sunni ee waajib ma ahadiitha ku soo arooray ka dumarkana si ay u dhigaanba waa ducafa wala isku waafaqsan yahay xadiis qaa'ima ama istaagi karo oo gudniin dumar ka hadlayo oo ku cad inaanu jirin imma sahihun ghayru sarih wa imma sarihun ghayru sahih وحديث كعادو aan jirin oo aad u liita oo kii oranayay umacatiyu nabigu la hadlayo markaas wuxuu ku yiri inanta gud oo taabsiyuuna xubinka waxba ka jari shumi wala tanhaki fa inna ahda lizawj wa anzaru lilwajh hadith athar معني sidaaha لكن وباتفاق المحدثين والعلماء والضعيف مره ولما دليشن karayo kaasi waa صريح غير صحيح mid isaguna waxa jira saxiixa laakinahu ghayru sarih oo aan ku cadayn idal taqal khitaanani faqad wajaba al-ghusl rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam labada gudniin marka ay istaabtaan labada gudniin haday istaabtaan mayrigu wuu waajibay marka xadiidku baab gudniin kama hadlayo laakiin wuxuu ka hadlayaa baab dhahara ninka iyo gabadha labadooda xubnood haday isdhex maraan oo ay wax de ilaaj lagu tilmaami kara sameeyaan galmo بيبيانا إيمانينه ما يرجعوا واجب يبوك هذا يا باب الغسل ما يرجع جنابه وكورما يا رسول لكن هلك لغير علامة دي وحوي لبق قدنين بالنبي بالشارع تاسوح لغير أورينا يا بيده قدنين كوح شرينويه وقوليها مركات الماما يان إنه حديث كاب صحيح هاي دليل النقاقرة صحيح هو لكن هو غير صريح كما عطا ونبي قدنين بك ما ورمين ظهار وكورمين كمان ورمين لبدن قدنينا استابتي محق با لغو غداي بس باطل با لغو غداي الى ان حق لغو غداي لبدن قدنينا استابتي وا سورغال ان باطل لغو غدايو لبا قف لغو غدايونا اسهلان ولبدooda ba maaragtaan gooli ruuxii dumarka ahayd marka laga hadlayo xaq iyo baadil sax iyo khalad taa ugu banbixin iyo sugitaankeedii la'aanteeda wuxuu ka hadlon mayriga waxana iska jirayay dhaqamadii carbeed oo waqtigii hore iska jiray oo gudniin iyo wax kala balaha in ahkaamtuna ay timido sharcigana la dajiyay marka dad bari hore la guday oo jaahiliyadii la guday haday isu tagaan arin noocaas kuwana way noqon karaan qaar kalena way noqon karaan marka waxaan uga jeednaa daliil sugan oo ku cad ma jiro saadaradeed ba waa waajib iyo waa sunni labada qowl baa yimi qayb kamidina waxa bay dhahdaan ma la taabanayo leeyahay qofka bani aadamka jirkiisu karaam u leeyahay احترامنا ولا يهي سيبا إلمه مركو يهي المدائر شرعه وحي مركز سجى مصلحة دي سائل مهير أيوم باع في ما ظهاريه ظهرهم بالله قبان كريا ومثل هدي عذر لقد داوينيه إياه هدي برا لقد جوينيه مرة والبوح لو إيه محادي بسوق عليه المهير والدك حق مها وملها المهير وحدونه ينقص معيه ومر إلي وفتشيو دايلك التعاون كسارية مرنا وراه اللي بدقلان كجوينيا مر حقد بان كجوينيا وقفعه وحاصر حرام بكي المهير نفتيس دواء أمانة سيدا قف كان وين بنفتيس أمانة أي وطه سادراد وحي الشرع كو أقول يا إسقى مصلحة أيوم القبان كرايا إنه مصلحة يهين أنا وهينا دي أدو حديدي ما يصير خاطير ده حديدية عدة أقوام تقوله هي حديديس marka shafidan caruurta la iska shafaya samboor laga jabinayo daliil kana loo keenayo la oranayo caadaha reedo la diidaa caruur la'aan bay leedahay kulay waa daliilkii lagu sii shaabadaynay waxaas ma jiraan ilaa daqlaga laga ma jari karo
ilka dacawo lagama saari karo samboor lagama jabin karo nebigaaba diiday calayhi salaatu wasalaam buro lagama goyn karo gudniin laguma samayn karo ilaa in daliil adag la helo mooyaane halkaasay culimana qaarkoodna mariyeenoo waa midhka ay ugu jecel yihiin hay-aduhu midhkaasay ka helaan ninka yidhaahda bahalkaasi ma jiro suuqiisu waa xaami marka iyagu kama eegayaan xagga sharci kama eegayaanoo dee diinu ma joojinayaane waa bahalka aidiska iska ilaaliyo kondhomka ka gashada oo kale wey waxay ku leeyihin kondhomka iska gashada marka sinaysanaysaan aidiskana iska ilaaliya sinadana iska wada oo kondhomka marka isku qolan mayhin marka siday uga hadlaan inagu ugama hadlayno laakiin inagu nadara sharciya adaa'an liamaanati diin wayata aynu ka hadlaynaa oo masalada marka laga hadlayo aqwaasha culimadoo dhan waa in la soo bandhigaa maxay yidhaahdeen marka cawnulmacbuudka waxa uu kaga hadlayaa sheekhu markuu baabkan ka hadlayo in culimmadu ay isla waafaqeen in daliil sugan oo ku soo arooray aanu jirin gudniinka dumarka sidaa daraaddeed aan waxba la taabanayn waad ka akhriyi karaysa waad ka raajici karaysa idaafatan ilaa daalik markay culimmadu ka warramayaan daraasadahay sameeyeen waxay leeyihiin iskuma mid aha dumarka caalamka xubinkoodan yaro la taabtaa qaar buu muuqdaa qaarna maba muuqdaba marka kuwa aan muuqanin waxba loo dhowaanba maayaba taasina waa arrin kale oo kale takhasuskeeda iyo daraasadaheeda leh cumuuman madaahibtu way u bateen waxaa jira waxyaaba ay madaahibtu u badan yihiin laakiin daliilkiisu liito ayaa jira oo markaa daliilka ay soo qaadanayaan uu daciif yahay waa jira marka khitaankaas kiisaa yara sunniga ah waa la sheegaa qayb ka midina culimmada hadduu qofku iskaga tego dembi kuma dhicin bay idhahan kol haddii daliil ilaahay ku addoonsado qawi aanu jirin waxaa kaloo jira sunniga laftiisi baa laysu dhex fadhiyaa oo dumar maqas dheer sitaa odhanaya sunni baanu samaynayna khatar ba ilmi yaraa gelinaya sunni wax aad u sahlan oo ka dhiijina baa lagu tilmaamaa una baahan khibrad caafimaad iyo qofku inuu aqoon u yeesho laakiin haddii xubinkii wax la yeelo qodobkii uun ka maqan yahay kaasina sunni ma ahee waa nooc kaloo jafida isaguna marka arrintaa aad ha looga fiirsado oo ubadka yaryar yaan lagu tacadiin masalada maaragtay seminaarkeedii iyo murankeedii iyo hawsheedii oo badatay daraaddeed ayaa waxay noqotay inaynu isdul taagno oo bal aqwaasha aynu maaragtay wixii nooga muuqday بسم الله الرحمن الرحيم ومسألة مهمة ويهنا سيقوني الله ساريها ولا حوك سدا كنين كدمر كوحو النقضي سوق يا مشروع لقى شقيستو والرجل الدمر فربضان بحوله كسوقاته قارب بكته الشريبة حوله بدن كوهلي waxaan jeclahay bil ikhtisaar inaan ilaahdo gudniinka ama rag ha noqdo ama dumar ha noqde waa sunnatul anbiyaa rasuushu ilaahay soo diray dariiqoodii waa nabigu markuu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam sunanul fitra waxyaalaha usuusha qiimaha badan ee la soo kala gaadhay waxaa ka mida gudniinka lama kala qaadin rag iyo dumar waxaa ka mida xadiidka fi saxiix muslim iyo keyrkii ku yimid ida iltaqa alkhitaanaani faqad wajaba alghusl labada xubnood ee la guday markay istaabtaan oo isgaadhaan qabaysku waa waajibay buu nabigu sallallahu alayhi wasallam daahirka xadiidku waxa weeye inay labada xubnoodba gudan yihiin maalin dhaweyd gabadh baa la ii sheegay idaacaddan Star FM ka hadlaysay waan raadiyey magaceedii markii dambe oo ka hadlaysay gudniinka dumarka oo leh xataa gudniinka sunniga ah waa xaaraan أحاديثتي النبي كان كتمة سيان عادي هاي طبعا وحبا ويرى بحثنا وحبي يرى فهميس لكن وحبي لقتك ولا قضي قليه إذا عدى وحان كوري الصوت كذي ما إيه لكرتانو ويكعذر دارتين وحيالها أي كوحي يارتي وحا كم إذا حديث كان هذا
إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وحيت باب التغليب على هذايو عمرين إيه قمرين إيه هالكاسي مرت وور خلدان واي وور ظاهر كحديث كجرم مرسوم wax ta'wiilka keenayana ma jiro wax qasbahay ma jiro xadiis marka la isu geeyo iyaduna xoogaysanaysa jirto tilmaamaysa dumarka xataa qaabkii loo gudi jiray tilmaamaysa xataa dumarkii gudi jiray hebla gudi jiray qaabkay u gudi jireen sheegaysa waxa soo dhan wax si fudud looga tilaabsan kara ma intaanan gaadhin gudniinka sunniga muxuu yahay waxaan doonayaa inaan cadeeyo saddex ra'yi bay culimadu qabaan gudniinka dumarka saddex ra'yi bay ka qabaan qolo waxay leeyihiin waa waajib sida rag oo kala qolana waxay leeyihiin waa mustahab iyo sunna ee waajib ma qolana waxay leeyihiin waa iska banaayo waa la iska dayn karaa hal nin oo culimadii islaamka kamida oo qaba waa xaraan ruuxii soo helo kutubta fiqiga ka soo hela 1 milyan baa miiska iga saaran wa atahadda ma jiro ruuxa le marka waa xaraan soo istaaga wuxuu jabiyay ama jiiray ijmaaci ummadda iyo culimadu jiiray ijmaacu muxuu yahay waa iska banaayay hal iska daayo waa banaanta waa raay waa sunna ee hal gudo waana la iska dayn karaa waa raay waa waajibayaan laga tagin waa raay laakiin waa xaraan waa war gaalo way war muslima waa war gaalo warka ruuxa leh wuxuu u baahan yahay yuusan meelahan ku wareegaysanine inuu saleeyo muslimiinta yaa culimada kamida uga horeeyay waa xaraan ما جرو بل إجماع علماء وحكو قنتمي سيدة ابن حزم غير كسوق قورينيان مسألة إني إنتا أرحيصو لكن أين كبحصني وحانك تشعلان لا أمرك ولا لها كهل يا مسألة قدنينك إني الشرعي إلى ليان أين قال إنت يو أذيغيان أين الشريعة ضد كتمن إلهينا أين الدنب كجلين وحين أقول ولهينا أين الدردرين مسألة أنت هدانك يوجد به جدنينك حدي ليس كدا يون لجديننا وحده بملا على الرأي بعض أهل العلم وأنا سيدا هذا يكون رقمان محوها هاي عالم الإسلام إن بدلوا كم إذا كون غنت هو ده ماذا الخليج كالسعودي يا خليج كقبل لما جود ولا سكدا وح إشكاله وين ملا خاصة حدي أي وده ماذا قاركود كتلنا يسوع هو يدا يا أباها يا والدكو إنه خطر قلان خطر يسقليننا وده ماذا قاركود وجريمة وينات قبل دقود أديك هلسكو قلين كرا قري جانا هلس قلين كرا مركز شيء سيدا سوكالتا خطر لو ما قالوا حالها النوع سوكلا سيدا إلى الرجحان وإلى في عن وحي تهاي إن لجوده ابن القيم عليه رحمة الله markuu ka hadlay xikmadda ku jirta gudniinka dumarka wuxuu tilmaamay dumarka sideedaba shahwadoodu way xoog badan tahay buu inta yartee la jarayana wax ku filanna waa u reebaysaa intii siyaadada ahaydoo xumaanta ku ridi lahaydna way ka goynaysaa hadiise saa loo daayo khatar bay ku jiraan buu leeyahay halis baa jirtuu leeyahay sidaas daraadeed xikmad sharciya kolley ku jirta أما النظافة هالنقطة أما تا ابن القيم تلمامة هالنقطة واحد لبقوا إليه ده هنا متشرو قدنينكو مركو السنية قدنينك السنية أو حلقة ودا وقدنينك هدي اللي هذا جواد هل جود الشريعة وافق سوا وحبين كذا وحاد أوير مويه أن لا تابنين وحاد أوير وحديث كحسن كان النبي كتب النبي صلى الله عليه وسلم أرسي لكن هتشرم بالوجود ursi taabsi bas ayaa lagu yiri marka wax weyn iyo dib weyn ma geysanayo dhaawacna ma geysanayo gabdhaha marka sida loo gudana xataa ma dareemayaan inay seexato oo dhibaatooto oo rafaado oo muddo dhaawac ku yaalo oo ma galeysaba wax weynba ma ahaba ka noocaas oo kala marka waa midka shariicadu sheegtay dibna ma laha
laakiin midkan ay fircooniga aynu nidhaahno kaas isaga waa jariimo waay kaa waa dembi weyn oon sahlanayn oo khatar ah oo ilaahay agtiisana aan ku fududayn sharcigana aan ku fududayn wixii horay u dhacay waa dhaceen laakiin wixii ka dambeeya haddii sharcigii la fahmay arrintaa iyadaa waa inay istaagto la dabar gooyo waay maxaa yeelay intii hore lagu sameeyey baa ku rafaadsan oo caafimaad xumada iyo dhibaatada iyo rafaadka iyo dhibka uu leeyahay muxuu ahaay waa mas'ale iska cad waay taa marka dagaalka lagula jiro iyo la dagaalankiisa qayb baan ka nahay shariicada ugu horreysa wax la dagaalamaya laakiin tan kale loogu hoos dhuumanayo ee la gaadhsiinayo heer waa xaaraan la gaadhsiinayo taa waxaan leenahay cagta dhiga yani waxaa la yidhahdaa man takallama fii hayri fannihi ataa bilcajaa'ib yani wuxuusan garanaynin ninka galaay cajaa'ib buu la yimaadaa dumar aan shareecada waxba ka aqoonin oo gaaladu waxoogaa fan ah u soo dhiibtay baa waxay leeyihiin shareecadan ka hadlayna mid sidoo kaleeto waxoogaa soo qaatay baa wuxuu leeyahay shareecadan ka hadlaya ee waxay gudniinka ka qabto war baro marka horeeto bal horta baadh oo masalada iska hubi oo muxuu ahay hamarsanine masaladaasi marka khatarteeda leh dhanka marka laga fiiriyo waa markay masaladu gaadho waa xaaraan ma khalis waa xayelay wax qaba ma jiro culimada islaamka ka mid ah nusuustana way ka hor imaanaysaa iyo ahlul cilmiga madhabkay mareen laakiin intaa wixii ka soo hadhay waalidku wuxuu khiyaarku doonuu qaadan karaa waalidku hadduu iska daayana dhib uma arko hadduu gudana oo gudniinka sunniga gudana dhib uma arko wallahu a'lam gabadh yar 7 jiraan haystaa inaan gudo gabadha ma waajiba mise waan iska dayn karaa gudniinka gabdhuhu waajib ma aha mara jirta dalailka sharciga intaan garanayo wax waajibinayo sugan oo asaxay midda ragga awaamir baa jirta midda gabdhaha laakiin way fiican tahay haddaan xuduudi la dhaafaynin oo intii xadiidku ku soo arooray ushmi walaa tunhiki birtan wax yar la ursiinayo laakiin aan lagu talax tagaynin oon meeshii la baabi'inaynin ka waxaan ka hadlaynaa waa gudniinka sunniga khitaanka sunniga la yidhaahdo kan fircooniga sinaba uma bannaano waa tacaddi iyo xadgudub iyo jinaayo waxyeello wey amaa midkan kale waxaan ku talin lahaa inaad iska dayso haddii aad joogto ama ay ku mudanayso meele intaa dhib ka weyn inuu yimaado aad ka baqayso gaar ahaan dadka westernka iyo waddamada gaalada jooga ama markaa ha joogaan ama intay ka soo baxeen ha ku noqonayaan arrimahaasoo kalena dembiyada waaweyn ay ka yihiin waxay sababtaa in waalidkii khayr mas-uul laga dhigo ilmihii yaraa ee usaa iyo kuwii kalebana gaalo gacantooda ay galaan ay la wareegaan sunanka marka la samaynayo hadday mafsado ka dhalanaysa ka raajixsanna inaan la samayn baa asal ah saas baa saxa saas darteed haddii aad dadka waddamadaa jooga ama ku lug leh tahay waxaan ku talin lahaa inaad ka daysood faraha ka qaado waayo taa ku dambaabi maysid laakiin samaynteedu khatar weyn oo adigii iyo ilmihii oo dhan ba soo gaari karta ayay leedahay